السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada daawadayaal marka hore intaan u guda galin programkan idin wada haduu muuqaalkan idin soo gaaro waxa si xushmad ku dheehantaa idin ka codsanaya inaad YouTube-kayga subscribe aad ku imaamadaan sidoo kale share-taha like-na saaran muuqaalka comment-na waa aragtaa. soo dhawaada waxaan rabnaa inaan ka hadalno caawa daawadayaal intii Puntland oo madaxweynaha ka ah Saciid Cabdullaahi Deni 5 sano la soo dhaafay magaalada Qardho magaalada boqortooyada dhaqanka Soomaaliyeed ee Qardho oo uu ka soo jeedo wuxuu u qabtay dhan horumarineed dhan dhaqaale kaabiyaasha dhaqaalaha dhan yarteeda shaqadood uu sameeyay haddaba hadduu ku sugan yahay olole siyaasadeed uu ka wadaa dhaqanku la kulmaya sidoo kale waxa sheegay hadda biyo xireen oo waqtigiisu sii gabaabsiyo gabagaba ah uu olole ka sameynayo biyo xireen halka ka sameyn doono hadda magaalada Qardho halka saa daawanaysa waad saddexdii sano u dambeysay oo isaguna madaxweynaha Puntland ka ahaa daadad baa la kartay naf baa ku baxday maal baa ku burburay guriga ku dumay magaaladii maalmo dhan baan socod ku xanimnaa waxaan rajaynaynaa dadkii wax gaareen kii ganacsigu ka burburay kii gurigu ka dumay kii waxyeello kala gaartay inaan u boogadhayno sidoo kale Saciid Cabdullaahi Deni xilliga ololaha ka ahaa ololaha raadinayay madaxtooyada Puntland oo ololaha ku jiray meel madal wuxuu ka yiri waran uu reer Qardhood ma ahi boosaaso iyo waaqiyaan u dhashay ma aqaan reer Qardhood wixii idaba joogan hadda waa kan soo qabadeen sida gudoomiyuhu sheegay anigu reer waaciye reer boosaasana Qardho waxay daba socotaa uu garan maayo madaxweyne dib isu dhageysto magaalada hadda koor ka faanayso anu sheekh Qardhood ma ahi reer Qardhood ma aqaan wax iga daba ordayaan hadda ilaahay wuxuu qadaray inaad ku sugan tahay aad ka wadid olole ama xisbiya ha ahaato ama ku darsasho kala ahaato ma ha ahaatee dhaqanka iyo qaybaha bulshada iyo wax garadka aad ku miisad hadda ku sugan tahay dantu waxay ku baday in reer Qardho hadda dabada la gashay Saciid Cabdullaahi Deni intuu baar madaxtooyada Puntland joogay intuu Puntland maamulaya madaxweynaha ka xataa dhalinyartii deegaanka ka soo jeeday shaqo abuur ma u sameyn si kale uma taageerin magaalada bilicdeeda iyo wadooyinkeeda iyo garab istaageeda haday hanad garoonka ciyaaraha garoonka hadda kubadda cagta Qardho waa dunsan yahay garoonka la waday mashaariic kuma dirsan wax taakuleena iska daa magaaladu 5 sano oo Saciid Cabdullaahi Deni joogay ayada waxa laga dareemay dib u dhac balaaran hadii hanad daadad magaalada ku soo rumaday waa idin sheegay ilaahu beerka dhaqaale xumi kala soo foorsaartay ilaahu beerka beeninay hadda Deni inta uu joogay Qardho hal mid ugu manasiin kara midaas waxay tahay seminaar garow lagu qaban jiray in Qardho lagu qabto sababtana waa sababeynayaayo Deni interest kale magaalada ugu ma wadin hotel asoo sheer ku yahay ku leeyahay oo la safari ba halka seminaarada lagu qaban jiray waa halka kirada qaadan jiray hotelka saxan jiray oo cunto ka heli jiray cunto adeega hotelka ilaa markay meel soo yimaadaan fara badan dhaqaala meesha ka soo galay iyo kaalashada uu leeyahay halka shidaalka laga qaato waa tan khaasa magaalada ummadanayn dantiisa khaaska shakhsiyadka buu ilaashan marka Deni waxaan leenahay madaxweyne ilaahay ku sharfo Qardho 5 sano waa hakrad madaxweynaha hore Puntland soo maray ninkii garow ka soo jeeday si gaar ah garow looga dareemay horumarka iyo 5 sano gaalka ayu kadalik saasa looga dareemay laakiin Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ka dhameeyay maastir oraahdi ahayd hadda ka hor ololaha markuu ku jiray oo waaciye uu ka qodbadeenayo oo yiri waraan reer boosaasoodii reer waaciyaabaan ma aqaan reer Qardho sababta ii daba ordayaan oo igu daba qoranyiin ma garanayo buuginda ka dhabeey oo reer Qardho marka ma aha Saciid Cabdullaahi Deni marka aad iyo aad baan salaamaya muuqaalkan hala sheer galayo meel walba laga tuuro luuq laga tuuro Saciid Cabdullaahi Deni iyo taageerayaashiisa luuqa loogu diro subscribe buu channelkeena ku soo sharfa like tana yaan liga hilmaamin iyo commenting bye bye isma dhaafin wadagu xagga YouTube ku guuray YouTube ku soo kala kacanaya fadlan khiyaartayda sharafta badan oo waxaan idin ka codsanayaa
youtube-ka baan u guurayaa iga soo qumamada